walaalayaal saynu ogsoonnahay waxa inagu soo dhow nabad Allah inagu gaarsiiyo bishii Ramadaan al-Mubaarak waxa markaa aynu isku baraarujinaynaa bishan sida aynu ku qaabili lahayn in ugu diyaar garoobi lahayn waxaan dul mari doonaa insha Allah 20 arrimood oo shareecadeenu ina fartay bisha ka hor inaynu ku diyaar garowno ilaa wixii miisaan le mugle marka aad danaynayso diyaar garow la'aantii kuma yimaado وأنا ذو ديار قرودة دو وفتوكي مرايو دي عروة إيا لقالات كفا إذا سنة يسو قفكو ديار قرو بضنبو السمايا إيا هذا يسفر تهيبا كديار قرو رمضان كو حكا نية الخالص إنا إنو نية وانا أكسن كو قابل الله إيمانا واحتسابا إنه وديار إنا إنو بشا قوانا إنا قتها إنو قفكو الصومة إلهين أجلوك قدونا سبحانه وتعالى وكرها لقلنا waxaa kamid ah inaynu ilaahay barino inuu nagu garab galo qofku awood kastaba ha lahaado hadaanu ilaahay garab galin subhanahu wa ta'ala cibaadada shaydaanka ka faa'iideysanaya ilaahay markaynu barayna waxaan leenahay iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ilaahay wadaan ku caabudayna gargaarna waa ku weydiisanayna suuratul faatiha marka cibaadadii iyo isticaanadii gargaarkii ilaahay la gargaarsanay ayaa isbarbar yaala bishan waxyaabaha uu waaweynaynu ilaahay ka doonayna waxa kamid ah inuu ina cafiyo ala tuhibuna an yaghfir Allah lakum marka inaguna waa inaynu iscafinaa ramadaan ka hor dadkeena wax dhax yaalaan iskhilaafay uqdada isu haya waa in la iscafiyaa oo la issaamaxa ilaahay wuxuu leeyahay dadka cafiya meedaan idinku jeclayn inuu ilaahay idin cafiyo marka doonayso ilaahay inuu cafiyo aduguna adoomaha cafi waxaa kamida tawbad wanaagsan oo miyir qabta waxaa kamida ta'allum ahkaam ramadaan bisha ramadaan ahkaamteeda inaynu barano fadligeeda waxay ku ansaxdo waxay ku burto intaanay wali bilaabin ee aan qaybi ka khasaaroobin ajaladaha iyo kutubta iyo muhaadaraadka iyo cilmiga ramadaan si baro waayo cibaadadu kama soo hadha cilmiga marka arintaasina aad bay muhiim u tahay qofka muslimka ah dadweynahan in lagu wacyi galiyo cilmiga ramadaan marka dadku ay cilmiga bartaan ansixidii bay u dhawaanayaan su'aalihii baa yaraanaya qofku shakiga baa ka baxaya waxaynu badinaynaa bishan iyada waalidka inaynu isagana cafis weydiisano inuu samafalo cidii waalidkiisu nooliyay iyo cidii uu dhintayba oo waalidku samafal buu leeyahay intii uu dhintay kadib ama ha loo duceeyo وصدقها الله بحيو أما دردارن كيسي هلا فوليو سيابا بدن با لوغو سمفلا والد كنتي وادونك كتغو غيريوداي كدib waxaynu ku dadaalayna oo diyaar garowga kamida xaq rad الحقوق الى اصحابها من ديون وامانات qofku cidii uu wax ka hayay inuu u celiyo waxoodi deyntii ya xaqi lagu lahaa iyo wixii uu dadka qaatay waxaa kamida waxyaabaha in ku diyaar garoobayna musaahabatu al-akhyar alladina yu'inuna 'ala al-'amal as-salih dadka wanaagsan inaynu ka agdhawaano oo marka doonayso shay inaad qabato si fiican u qabato dadka si fiican u sugaya lala saaxiiba marka saaxiibkii xumaad isleedahay bishan uu ku seejinaya ka ag bedelo waxaynu ku diyaar garoobaynaa dhowrka cishe haray qofkii qalla lagu leeyahay rag iyo dumarba inuu iska bixiyo oo uu u degdego nabigu wuxuu yiri fadaynullahi ahqqu an yuqda deynta ilaahay baa ku haboon loo degdego marka dadka qaar kood oo qalla lagu leeyahay dhowrka cishe haray wanay ka gaarsiiyaan waxyaabaha aynu ku diyaar garoobaynaa waxa kamid ah bishu marka ay bilatay inaynu akhrino ducadii nabiga calayhi salaatu wassalaam sida uu tilmaamay xadiidka Tirmidhi warinaya saxiixa nabigu waxa rasuulku ahaabay leeyahay saxaabada ridwaanullaahi calayhim markuu bisha arko wuxuu oranay Allahu akbar Allahumma ahillahu alayna bil amn wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah ilaahu bishana ay noogu bilataa nabadgeliyo iyo iimaan islaamnimo iyo nabad ila iyo adigoo nawaafajiyo rabbi oo wixii aad jeceshayd raali ka tahay bil yahay rabbigaagu iyo rabbigaygu waa rabbuna Allah wa ilaahi subhanahu wa ta'ala marka ducada nabiga la akhriyay qiimaha badan bishan waxyaabaha aynu
كفكرنا وحا كميدا ما إنو كد ذالينو إنينا خلاف الحديث كالرسول صلى الله عليه وسلم waxa saxiixaynka ku sugan Bukhari iyo Muslim inuu nabigu yiri la bishan ha kala horumarina laba maalmood soomkood ama hal maalin soomki adigoo isla Ramadaan u dadaal marka labada cisho u dambeeya biniyati Ramadaan looma soomeeyo iyo adigoo Ramadaan u dadaalaya rasuulku wuxuu raaciyay ilaa qofkii soo soomi jiray mooyaane qofkii qalla soomaya oo qalla waday ama isniinta iyo khamiisaha iyo soomayay qofkaasi wuu soomi karaa laakiin qof is yiraahda maalinka 30aad iyo maalinka 29aad iyo Ramadaan u dadaal sax ma waa maalin soomkiisa oo xaaraantinimay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxaan isu diyaarinaynaa bashan inayna nadca jadwalan wa barnaamijyan liistiqbaali hada ash-shahr bishan si aynu uga faa'iideysano nidaamkaaga waad dhigaysaa adduunyada inta ka shaqeyso waqtiga waxbaad baranaysaa waqtiga wad cibaadeysanaysaa waqtiga quraankaada jadwal waa inaad samaysataa noloshaadu ay ka baxdaa wax iska socoon iyo cashwaayada si aad uga faa'iideysan karto waqtiga waxaynu bishan ku dadaalaynaa tajhiiz ba'd al-ad'iya al-mutlaqa wad-diiniyya meelaha qaar kood oo qofku uu aad uga dhibay ama ummaddu ay aad uga dhiban tahay inuu rabbi barigeeda ilaahay uu barayo subhanahu wa ta'ala arrimaha inuu xalliyo inuu qofku cayinto oo iraado 5 meelood 10 meelood ducada u badisay salafku sameyn jireen oo dhib iyo dheef wixii dhib uu ka carray adoonku iyo wixii dheef uu doonayo naftiisa iyo ummadaba inuu markaa calaamadsado waxyaabaha ilaahay aad u barayay subhanahu wa ta'ala waxa laga maarmaana bishan iyada inaynu isu kaashano ololayaal qaadno waxa kamid ah taqdiim amal ijtimaaci amal aynu iska kaashano bulshadeena aynu ku anfacayno inaynu ku dadaalo hadiya jeerna marka shayga la isku biiriyo bataa oo macna u sameeya dadka sida loo caawin lahaa tabarruc iyo afur loogu sameyn lahaa iyo dadka baahan baahidooda sidii wax looga qaban lahaa intaana la iska kaashado rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiiskii saxiixa waxa uu ku yiri ahabbu an-naasi ila Allah yanfa'u dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay ka adoomaha anfaca cabaladana wuxuu ugu jecel yahay saddex arrimood qof muslim oo laga farxiyo kurba laga dulqaado deyn laga bixiyo iyo taafraad oo agaajo laga reebo arrimaha camaladana kuwaas ilaahay ugu jecel yahay dadkana kuwaas ugu jecel yahay sida daraadeed inaynu noqono ama ku dadaalo dadku ilaahay jeclaanaya iyo amarkii uu jeclaa aad bay muhiim u tahay waxyaabaha aynu ku dadaalayna waxa kamid ah silatu rahim qaraabada inaynu xiriirino dadka had iyo jeer waqtigaas aad la isu eega ama in wax la isu faa'iideeyo marka bishan iyada dadaalkii loo sameeyay qaraabo xiriirinta oo cibaado iyaduna ahayde in iyana lagu dadaalo sidoo kale jaarka oo qof waliba dadka jaarka ka agdhow waa qaraabadiisa حديث بدن برسول صلى الله عليه وسلم وكجاه هذا جاركنا يحقق يسكول لي استيكوجو كلا الباب الدويهين بحاله اللي كريسين هذه جنا قايبو باس كريسود وقول تلاقش وحنود ذالينا الصلاة دي شعيرة وين هايد على بوين كوا هايد بشهر رمضان التراويح له هنا إن كتجني يدنا إن كود ذاله وحين كود ذالينا حملة المساجد مساجد تدين ولا لقوا قاضو هدي أي تهاي نظيفين تودا هي قرحين تودا هي افتيمين تودا انتوا وقبتي إلهي لقوا عابده يدا افتيم يسود جانا نوريس وقت جاني وصاق له وأنا ضيعين واستنبر كيا وحية مساجد وبهناين هي جوجل بقى ضد كجنا عستديا مع القبين كحافظها هيك قيب قاتانية تولوينكا وحين كده ذالينا حملة تزيين الشارع إنا ينودوين كنا نظيفينه نظافة دينا ودلاله افتيمين تينا لو دلاله وصيدا هذه الشر أيامها قرن وحى أيدادان ومضوه دولك الله افتيمية يدلك إن بشهر رمضان الله افتيمية ودلك عبادة وصعنا يعني مدو دريمين كدافة دريمين ميل والباوحي نبقى لقى قاضر وحينود كده ذالينا الحملة الإلكترونية دتك هذه الشر استعمالها أقب كان وحلقوا باهية براها برشدة وين إنه الله لقادنا آذو فربضنا دتك إنه وحكوا جارسين إنه خيرك حديث البخاري ومسلم كسبنا النبي وحكوا صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم
qof qura inuu ilaahay sababtaada ku hanuuniyo geela cascas bay kaaga fiicanta man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacili xadiidkii muslimna wuxuu nabigu ku yidhi qofka qof khayr tusiya qofkaasi wanaaguu sameeyey in leegunbuu isagana ilaahay siinaya marka waxaad isku daraysaa bahdaada xagga khayrka iyo cidda aad ajriga ka heli karaysa inaad aada u badsato si aad u noqoto dhinaca khayrka nin tol badan ku leh marka qofba inta uu soo hanuuniyo ama uu hagaajiyo ama uu tilmaamo ama qalbigooda ilaahay iyo diintiisa uu soo celiyo ajrigoodu leeyahay marka dhalinyarada waxaynu u sheegaynaa filimada sawirada qaaqaawan waxyaabaha bilaa macnaha intoo iska weydaarataan bisha qofku waa inuu ku xisaabtamaa intee oo xadiis intee oo aayadood intee oo muxaadaro ayaad ama sheer garaynaysaa ama dadka gaadhsiinaysaa taasina waa arrin qofku inuu ku xisaabtamo u baahanoo kayd badan bay u dhigaysa dee markaad boqolaal qof soo hanuuniso ama khayr sabab ugu noqoto ee lagu yidhi intii ay khayrkii sameeyeen in la-eg baad adiguna leedahay wax aada u weyn weeye marka arrintaana aad baynu baraarujin lahayn waxaanay xidhaysaa meelihii sharka lagu baahin lahaabaa laga xoog badanaya la caabiyaya waxaa ka mid a xamladahaas xamlatu tacaam in afurkaas orana waynuu soo sheegnay lagu talagalo nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu calayh wasalam inta qofeed afuriso in adiguna aada leedahay soomka intii ay ka heleen ajrihaa in la-eg xamladaha aynu qaadayna waxaa ka mid ah xamlatu ziyaarati almardaa waalmucawaqiin dadka dhiban baahiyaha gaarka ale cusbitaallada jiifa in iyagana la caawiyo loo gurmado haddii lasoo booqanayo iyo haddii wax loo tarayo iyo haddii laga farxinayo baahiyahooda in loo fiirsado kolba waxay u baahi badan yihiin lagala qayb qaato waxaa jira dad iska naafa ah oo haddana isku dayaya soomkii inay soomaan ha laga caawiyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu inoogu xusay xadiid saxiixu muslim ku sugan min xadiidi abi hurayra maalinta qiyaamaha qofka ilaahay su-aalo weydiinaya markuu xisaabinayo wuxuu leeyahy hebelow waan bukoodo imaad soo booqan raashin baan ku weydiistayo imaad siinin sharaab baan ku weydiistayo cabitaano imaad siinin miyaanad ogeyn markaa addoonkii uu jawaabaya wuxuu leey ilaahay rabbulcaalamiin baad caalamkao dhankii iska lahaa sideen kuu soo booqdaa sideen raashin kuu siiya sideen cabitaan kuu siiya adiga cid walba iskala wey markaa wuxuu leeyay miyaanad ogeyn addoonkaygii hebel inuu bukoodo aanad soo booqan miyaanad ogeyn addoonkaygii hebel inuu raashin ku weydiistay ama cabitaan oo aanad siinin haddaad soo booqan lahayd ama cunadaa iyo cabitaankaa siin lahayd arrinkaa agtaydaad maanta ka heli lahayd oo waad u aayi lahayd marka arrintaasina aad bay muhiim u tahay labaataniyada arrimood ayaynu bishan ku qaabili lahayn sidaa daraaddeed waxaynu ku talagalaynaa bishan sidii aynu uga dhiishaa dhaansan lahayn khayr fara badanna aynu uga heli lahayn biidni illaahi tacaala diyaargarowgaana aynu u samayn lahayn allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم